السلام عليكم وسعادتكم على جنة كسر وهذا مركلة مقال كرجال رجالي مدحوين يوتيوب حسن عدلي هذا هديه تاي مركي كوريسي اسوبقت جنالك سبسكرايب غري sidoo kale tood muuqaalkana la garay maanta waxa doonayaa inaan kula wadaago muuqaal aad iyo aad cajiib ah kaas oo arko in YouTube ay ka jirto cidlo haddaba maxay tahay cidlada ileen waxa jiro dad badan oo kumanaan shakhsi ay ku xiraa jireen kuwaasoo cirib iyo jaan meesha ay dhigan la yahay haddaba dadkaas yaa kamid ah adiga se yaa taqaana waxaan ka codsanayaa dadkii aniga aan ilaaway in aad adigana commentiga igu rabtid insha Allah inuu soo qaadano ninka koowaad ee la waayay cirib iyo jaan meesha uu dhigay ee ugu wardambeysay dadka inuu Canada aaday ninka lagu magacaabo Ayub Yusuf Sakin sida wada taqaana waa motivator sidoo kale tood waa author waa qoraa haddaba kaasoo wax badan dadkiisa la wadaagi jiray haba u badnaadaane dhiirigelinta laakiin dad badan ayaa waayay halka uu ku dambeeyay iyo meesha uu ka baxay bal hadda aynu isla eegno waqtiga YouTube-ka ugu dambeysay ee muuqaal ku soo upload gareeyay channel-kiisa sida wada jeedaanba oo aad ka aragtaan halkan waxa ugu dambeysay Ayub inuu ku soo upload gareeyo YouTube-kiisa ama bartiisa YouTube-ka 9 bilood ka hor dunidan dadka ku nool waa laba qof mid dunida culays ku ah oo hadhow goorta uu ka tago dadka oo dhan ay ku wada farxayaan waa inuu saameyn leeyahay sidoo kale intoodna uu yahay nin ku dayasho mudan oo ay dhif tahay in la helo asaagiisa yaa noo xiga qofka xiga waa kuma waa Shucayb 8pack waa la laayahay jaan iyo ciribba meesha uu dhigay aynu isla eegno marka asagana waqtiga ugu dambeysay YouTube-ka sida wada jeedaan asagana waa kan YouTube channel-kiisa mudane Shucayb 8pack asagana waxa u dambeysay 2 months ago ayaa u dambeysay ninkan maalmaha kan waxa la heedeen warniya ninkii 8pack xago ka baxay miyuu iska dhaafay social media miyuu iska dhaafay YouTube-kii maxaa dhacay laba bilood Shucayb wax badan waa maqantahay dad badan waa ay ku tabeen qofka saddexaad ee aan rabo inaan kula wadaago waa ninka lagu magacaabo Amir Sayid sida wada taqaanaanba waa YouTuber kaasoo badanaaba madadaaliya dadkiisa laakiin muxuu ku madadaaliyaa wax aanan anshax ka baxsaneyn haddana dhammaantood raggan aan ku soo sheegay waa rag very talented ah kuwaasoo mar walbo dadkooda saacida asagana goorma u dambeysay bal aynu fiirin asagana waqtiga u dambeysay oo muuqaal ku soo upload gareeyo bartiisa YouTube-ka asagana waxa u dambeysay 11 bilood ka hor ayaa u dambeysay wallahi waqti weyn waaye bilood ayaa u dambeysay asagana bartiisa YouTube-ka okay muuqaalka inta ayaan ku soo gabagabeynaa haddaba hadii ay tahay markii ku guurayso soo boqoto janaalka subscribe garay sidoo kale intood muuqaalka la garay dadkii aan ilaaway waxaan ka codsanayaa in commentiga igu rabtid one love Somali Maxamed peace